iyadoo baryahan dambe ay horumarro kala duwan ka socdaan gudaha degmada Bursalax isla markaana ay shacabka degmada tani Bursalax ku caan yihiin wax wada qabsi isku tashi iyo ka shaqaynta horumarka deegaanka ayaa waxa ay si isku tashi bulsho ah horay uga hirgeliyeen degmada tani laami 2 kiiloomitir ah kaasi oo dhex maraya bartamaha magaalada iyadoo laamigaasi laga dhaxlay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in shacab weynuhu ay markaasi ka raysteen boorkii iyo waliba biyihii wasakhaysnaa oo xilliyada roobka dhex fariisan jiray bartamaha magaalada iyo meheradaha hortooda isla markaasna laga dhaxli jiray cudurro kala duwan haddaba shacabka reer Bursalax waxa ay mar labaad si isku tashi bulsho ah u bilaabeen wadooyin kale kuwaas oo muhiim u ah dadweynaha reer Bursalax wadooyinka dhismahoodu socdo ayaa waxa markaasi ka mid ah wadada isku xirta Bursalax iyo Gaalkacyo taasi oo dhismaheeda laga bilaabay Bursalax Sheekh Muuse Xaaji Yuusuf Sheekhul Beledka degmada ayaa muslimiinta muxsiniinta ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaani bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu bilownay wadada isku xirta Bursalax iyo Gaalkacyo baahi badan ayaa wadadaas lagu qabay dadka maraya oo rakaabka iyo gaadiidkuba aad bay ugu dhibaataysan yihiin waxaanu ka fakarnay inaanu ummadaas u naxariisano ilaahay baa naxariis leh oo waxa ay ku sugan yihiin aan wax ka bedelo waxa wax uga bedeli karaana waxa weeye waa isku tashi dadku inay isku tashadaan oo iyagu wax qabsadaan oo jeebkooda ku xisaabtamaan waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastaba ha joogeene wadadaas waa wada Soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan dhismaheeda 55 kiiloomitir weeye ka bilaabanaysa Bursalax oo tagaysa Gaalkacyo annagu ka harimayno mana daynayno haddana saasaan ku bilownay waa bilaabatay waa u jeedaan waxa weeye hadda 2 kiiloomitir baan dhigaynaa mana uga harayna inaan wadnaan rabnaa teeriya Gaalkacyo waxaan ka codsanaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed rag iyo dumar yar iyo weyn meel kasto ay joogaan bifadlikum wa ihsaanakum nagala qayb qaata dhismaha waxa weeye wadada waa sadaqa jaariyo adduun iyo aakhiraba ajar baad ka helaysaa qabriga adoo jiifa ayaa aad helaysaa ajarkeeda iyo xasanaadkeedu ku soconaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydan barakeeyo meel kasto aad joogtaan in Allah inta nacaawisay ilaahay dambigiina kii waalidiintiin baa dhaafo meeshii aad ka soo saarteen sadaqadiina wax ka khayr badan Allah idinku bedelo inta bixin doontana waxaan leenahay ilaahay haydan barakeeyo wax khayr qaban Allah idin siiyo dad iyo dunya diin baa Allah idin barakeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacab iyo dowladda saba oo u diyaar garownay annaga dowladda saba waa ka qayb qaadanay dhaqaalihii waan bixinay dowladda lacagta ay taali waxaan ku darnay wadada haddana diyaar baa wanahay inaan ka qayb qaadano bulshaduna waxa loo ku darsato dhammaan inaan ka qayb galaan rabnaa Bursalax dadkeeda waxaan ugu codsanaynaa inay wadadan laga soo qayb galaan